nin siyaasi ahaw nin xakiim oo supreme court judge ahaw صح nin ma aragtay bicsharo ahaw اللبانيس I went to alliance aad baa looga faanay صح marka waxaa lagu soo aanqariyey lagu soo barbaaray inaan tacliinta ilaa ay meesha ugu dambeysay aan gaari karno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كلنتي وعنا وناكسن waxaad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelanayo Professor Idle Umar Faarax barnaamijkan waxa uu yahay sirta horumarka waxaan ku eegi doonaa hadduu Allah yiraahdo taariikhiisii nololeed waxaan wax ka eegi doonaa hadduu Allah yiraahdo waxbarashadiisii dhanka shaqo iyo guud ahaanba casharada uu nolosha ka bartay iyo sirta ka dambaysa in meeshii ugu sareysay xirfadiisii uu ka gaaro barnaamijka ayaan ku eegi doonaaye shaqada ugu dambeysay uu qabto wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen ama vice chancellor jaamacadda University ugu horeyn barnaamijka aan ku soo dhaweeyo Professor inoo soo dhawow kulanti wacan wanaagsan ayaan ku leeyahay Suleymaan aad u mahadsan tahay adiga iyo daawooyinka kulli waxaan ugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadaan u faraxsanahay inaad maanta kula joogo oo maaragtay wax kaaga sheegi karo maciishadayda insha Allah aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga qaaliga mashquulka badan inaad maanta aad qayb naga siiso ugu horeyn xusuus iyo taariikh dheer aan ku geliye haddaad xasuusan karto waaga dhalatay sanadii iyo halka ku dhalatay xagee ahayd Suleymaan waxa weeye sanadka 1965 waa 2 sano bacdan ma aragtay xorriyadda waddanka markuu qaatay marka Kenya 2 sano bay iga weyn tahay ayaan ku dhashay magaalada la yiraahdo Wajeer oo haddana ka timid tahay Wajeer County marka iyada Wajeer District baa la dhihi jiray magaaladana caasimada waa Wajeer magaalada ayaan ku dhashay marka khaasatan ahaan nin Wajeer ah oo Wajeer County ka dhashay ayaan ahay soo konton iyo 7 sano oo hadda ka hor alxamdulillah ayaan maaragtay meesha ku dhashay marka odayga aabahey Allah u raxmada Umar Sheekh Faarax waa dadka tacliinta ugu horeeyay North Eastern oo dhan Wajeer Gaarsi iyo Mandera marka nin dawlad u shaqeeyay ahaa markaan dhashay kadib waxaan u soo guurnay Gaarisa soo sanadka 1972 primary school waxaa dugsiga hoose ayaan ka bilaabay Gaarisa isagoo education officer Gaarisa macallin uu soo ahaan jiray wiilkiisa marka Gaarisa primary school ayaan 7 sano ayaan ka akhrisanay primary dugsiga hoose waqtiga iyada 844 waxaan ma jirin marka dugsiga hoose waxaa la dhigi jiray 7 sano waxaa laga qaadanaya natiijada ugu dambaysa waxay ahayd certificate of primary education CPE saddex maadooyin kaliya baa la qaadan jiray barigiis marka halka markii aan ka dhameeyay Garissa primary school waxaan soo aaday national school oo dhinaca Kiambu Nairobi Kiambu County oo Nairobi ku dhow oo dugsiga dhexe secondary school iyo dugsiga sare high school marka waxaa la jiri jiray form 1 ilaa form 4 baa jirtay ilaa daro form 5 iyo form 6 baa la sii aadi jiray inta jaamacadda la tegay marka iskuulkaas baan ku jiray ilaa iyo 1984 ayaan dugsiga sare form 6 ka dhameeyay alxamdulillah waan ku guuleystay marka waxaan imaaday jaamacadda Nairobi waqtigaan soo galay 1986 jaamacadda Nairobi kaligeed ma ahayd jaamacadda Moi ba markaa la bilaabay wax kale oo jaamacad oo Kenya kala ma jirin Kenyatta University way jirtay laakiin College of University of Nairobi baa waa meesha education kale lagu sameyn jiray oo jaamacadda University of Nairobi campus bay u marka jaamacad kaleba markaa la bahay marka waxa weeye jaamacadda Nairobi dad imaadin waxa weeye dad Kenyatta jaamacad kale oo tagi karto malahan inaad dibadda aadayso marka baryahaasi waxa weeye dadkii aan u imaanin University of Nairobi waxaa loo diri jiray India maaragtay Pakistan UK waxa way bari ugu darneed oo markii cunug loo waa jaamacadda in maaragtay Harambee loo guro oo dibadda loo diro ay noqon jirtay bariga hadda alxamdulillah 75 jaamacadood baa jira Kenya oo xarunta hadda joogaan fursad weyn bay leeyihiin
jaamacadda hoose post degree waxaan ka bartay marka bachelor of veterinary medicine xagga dhakhtarnimada xoolaha ayaan ka sameeyey meeshii baan ka sii booday waxaan aaday masters degree oo isla jaamacadda University of Nairobi oo haddana isla dhakhtarnimadaasi ku saabsaneed laakiin intaan ka bixin jaamacadda degree hore ilaa masterska waxaan shaqo ka bilaabay 1990 soddon iyo sano hadda soddon iyo laba sano hadda la soo dhaafay shaqo ka bilaabay meel la yiraahdo Institute of Primate Research oo ma aragtay meel waxa lagu baaro xagga dhinaca caafimaadka iyo ma aragtay cudurrooyinka badi ku dhacaan bini'aadanka iyo xoolaha ayaan ma aragtay baari jiray oo Institute of Primate Research oo ka mid ahayd shirkadda la yiraahdo National Museum of Kenya. National Museum of Kenya ayay ka hoos imaanaysay shirkaddan waa shirkad dowladeed oo aad iyo aad World Health Organization waxaa ayaa meesha ma aragtay aad u caawiso oo la caawinaysiisa hatta COVID-kan hadda la socdo meeshaas baa lagu baaraya marka 1990 ayaa shaqada bilaabay hagaag professor dib baan rabaa wax yar inaan kugu celiyo horta aan ka hormara iskuulka secondary aad soo akhrisatay waa Alliance soo maha Alliance High School ma aqaani magaciisa nooma sheegin dadka kale Alliance soo maray aad bay ugu faanaan oo xitaa marka ay xaflada ay ka qayb galaan ay sheeg waayeen waxaan iloobay inaan idin xasuusiyo Alliance soo akhristay ay dhaxal waa dadka kulli caan baa lagu noqday marka hariito waxa la yiraahdaa I went to Alliance صح inay baal soo gasho nin siyaasi ahaw nin xakiim oo Supreme Court judge ahaw صح nin ma aragtay bicashara ahaw Libanis I went to Alliance aad baa loogu faanay صح laakiin faankaasiitu hadda wuu ka baxay صح maxaa yeelay intaas hadda marka dad aragto natiijada ka soo baxaysa Alliance High School mar waxaa laga yaabaa hadda shanta ugu hore inay ku jirin ama tobanka ugu hore inay ku jirin صح waqtiga 1980s anigan baranay waxa way sanad kasta maba la isweydiin jirin Alliance High School ayaa ugu horeysay صح mid aad loogu faanay waqtigaasna waxay ahayd meel kastood ka imaaday waddankoo dhan marka iyada waxaa jirtay about 35-36 district kastaba ninkii ugu horreeyay cunuga ugu horreeyay gabar ha ahaa wiil ah kaliya baa la qaadan jiray marka by the time Alliance aad tegayso waxaa weeye waddankoo dhan kuwii ugu horreeyeen meel kaste baa meesha iskugu imaan jiray صح marka markii la sameeyo imtixaanada form 4 ama imtixaanada form 6 waxaa weeye qof kasta uu baasay waa gartay laakiin aniga waxaan rabay inaan keena caamushataa maxaa yeelay haddaad Garissa High School ama County High School aad aado ama Wajir Secondary School jaamacadda adigana hadda fursadda si fiican baad u leedahay bariyaasiito fursadda lama lahayn waxaa Alliance la iskugu dagaalay iyo la iskugu dhameeyay intaas bay waa gartay intaad waxbarashada ku jirtay primary-ga siiba waxyaaba aad islahayd haddii aad waxbarashada dhamayso jaamacad aad ka bogto waad noqon doontaa ma jirtay right from primary school aniga waxaan islahaa dhakhtarnimo inaan akhriso dhakhtarnimo kale ixna ma ahayn inaan jaamacad wax ka baro marka because nasiib baan lahayn ninkaana dhalay oo aabbaha noo ahaa waa nin macallin u ahaa jaamacadda anagoo primary ku jirno baa lagu sheekeyn jiray inay jaamacadda la tegi karo haddii aan hadda kuu sheego aabbahay iyo hooyaday kulli way jireen labadoodaba ilaahay jannada ha ka waraabiya 8 carruur bay dhaleen 5 wiil iyo 3 gabdhood out of the 5 wiil 3 hadda waa PhDs 3 waa professors jaamacada wax ka baran marka waxaa lagu soo aanqariyay lagu soo barbaaray inaan tacliinta ilaahay meesha ugu dambeysay aan gaari karno marka dadka barkood haddii fursadda ma haystaan maxaa yeelay waxay aabbahood iyo hooyadood waxaa laga yaabaa inaan weligoodba hataa iskuul ay aadin laakiin aniga fursaddaas baan lahaa marka dhakhtarnimo iyo PhD inaan sameeyo anigoo primary school ku jiro bay ugu beerantay
inaan halkaa hore u socdo sax marka weli hataa ma aanan dhamaynin sheekada PhD meeshaan ka sameeyey taas waa noo dambaysa insha allah hagaag waageeni waxyaabaha hadda dadka waxbarashada ama anaga nooga ficnaadeen way jireen waxyaabaha hadda aan idinkaga wanaagsan way jirtaa dhanka buugaagta haddii la dhaha akhriska waqtiyadan hadda aad baa loo helaa waqtiyadiina lama heli jirin waqtiyadiinina sida social media iyo teleefanadaana ma jiri jirin marka akhriskiini iyo dadaalada ardada ka waran suu ahaa والله markaas iyada waxay ahayd waa dadaalka ka sii ziyaadsan waqtiga hadda waxa way adigoo telefoonkaada iska haysata wax kasta oo meesha ka heli karto run iyo baan inay yihiin taas adiga ku jirta laakiin wixii aad rabto inaad ka hesho internetka waad ka helaysaa sax anaga waqtigan waxay waa library in la aado magaalo kasta Kenya National Library wax la yiraahdo baa jira Kenya National Library hadda tagi wayso oo buugaagta meesha yaala because kaligaana ma iibsan kartid buugtaas bada la helaynin hatta haddii ruux lacag hayana badi aad loo baheli marka number 1 waxa horta classka dhabtigiisa macalinka waa inaad ka faa'iideysto wixii su'aalood haysata macalinka waa inaad wixii asaga uu qortay noteskiisa kulli waa inaad ka faa'iideystaa oo macalinkaas aad dhegeysato macalinka aad dhegeyso waa isbeel kale oo ka helayso library inaad tagto oo fariisato oo wixii oo dhan wixii kulli wada qoraan wax computer ku jiro oo la soo bixi karto ama telefoon ma aha marka marmar waxaa jirtay Garissa Library intaan tagno ayaa 2-3 bari ka hore ayaad sii buugraysid haddaysa aniga maalintaasaan imaanay buug fulaan oo chemistry ah oo form 3 ama form 4 ah ayaa rabaa inaan akhriso maxaa yeelay dadka waa la badan yahay buugtii waa in isku wareejiyo marka xaaladaas baa soo marnay kulley baan isaga markaa ku jiro anyway alliance waan qabnay buugta way noo yeeleen laakiin iskuulka ilaahay baad ku heli markii aad fasax aado oo Garissa ku noqoto buugta ma haysatid waa inaad library-ga